project-geenu koobaad oo ah projection dabaqa waxaynu haysanaa architectural drawing-kii oo kana ground floor-kiina waan haysanaa typical history-giina waan haysanaa ama fast history ama fast floor-kii inta aynu ka gudubno waxaan ku noqonaynaa halkan xabadda koodun ku dhufanayay use save ayaan ku dhufanno waxaan gashanaynaa number of credits in x direction-ka oo aan ka sheegayno waa 1 2 iyo 3 halka ay weyduna tahay 1 2 iyo 3 saddex way iskaan leeyihiin waa 3 kan kalena waa 3 credit spacing-keenu inuu kala duwan yahay waa 1 marka x direction jiro 13 feet iyo 7 inch 12 feet iyo 13 feet iyo 7 inch sidoo kale weyduna kala duwan tahay halkan ka aragtid waxaan ku noqonaynaa markaa keenii tab field-keeni waan iska dhaafinaa labada soo shaqadeena maaha step-ka labaad intaana waxa weeye history dimensions history-ska aan doonayna maadaama ay 5 dabaq yihiin waxaan ku daraynaa saddex dheeraadkana waxa weeye ground floor-ka iyo roof-ka oo ka labaada iyo ka saddexaad oo ah water tank-ga marka waxay noqonaysaa 5 plus 3 waxa weeye 8 typical history-keena waxa weeye 10 feet bottom history-keena sidoo kale waxaan qaadanaynaa 10 feet hadhown bedelana markaan stair-ka sawirno ayaan gaarno stair-ka step-ka ku xigaan qaadayna waxa weeye combine marayno custom grid spacing oo step-ka saddexaad edit grid badalanaysaa waxaad ku dhufanaysaa display grid data kaaga wad iskaraanaysaa kan baad ku dhufanaysaa deetna daatadana halkan baan kala soo bixinaa waa 13 feet iyo 7 inch oo inoo la mid ah 13 inch iyo 13.58 13.58 feet 13.58 feet haddaan dib ugu yara noqdo feet-ka iyo inchiga iyo mitrka waxaa u dhexeeya daaqadana noo soo fur sidaynu doonay halkii feet waxa uu la mid yahay 12 inch sidoo kale halkii feet waxa uu la mid yahay 30.48 soddon dhibic 48 mitir waxaa qofkii rabaa halkan ka bedeli karaa wasab isticmaal kartaa isku bedelkooda isticmaalaya haddaan hore ugu soconno waxaan maraynay eedeyna x direction-ka ah b-deyna waxa weeye 12 feet iyadana waan gashanaynaa b-deyna waxa weeye 12 feet ar baynu odhanaynaa intaan halkan imanno ay 4 baan rabnaa ayaan ku gudubna taa waxay inoogu xiga 13 feet iyo 7 inch 13 feet 7 inch iyadana la mid ah 13.58 halkan weeyaan gashanaynaa 13.58 feet marka gudbina xabadda u dambaysa mar walba inay 0 inoo ahaataa waxaan imanaynaa iyadana way side-keeni ama way direction-keeni ku noqonaynaa balaankeeni weydana waxaa horeysa 12 feet iyo 12 inch intaana halkan waxa weeye 12.92 iyo 11.92 feet 12 inch waa la mid ah 0.92 inch 0.92 feet keena ku xigaan waxa weeye 11 feet ma filayaa waa 11 feet 11 feet keena halkan gashanaynaa ka ku xigaan waxa weeye 12 feet 2 inch oo la mid ah 12.15 feet inta gashano waxa laga bedeli mayno halkan spacing in x direction-ka iyo spacing in y direction-ka ku ranayna labada wadameen weyn mar walba 0 inoo ahaadaan oo kayban ku dhufanayna step-keena saddexaad waxa weeye custom history data ku dhufanayna edit baan odhanaynaa base-ka waxa ku bedeli mayno waa base halkan baan imanaynaa ground floor baan ka dhiganaynaa halkan baan tagaynaa history 1 baan ka dhiganaynaa halkan waa inoo history 2 halkan waa inoo history 3 halkan waa inoo history 4 history 5 iyo halkan oo roof inoo ah iyo halkaasoo water tank-inoo WT baan soo gaabsanaynaa okay baan odhanaynaa colorska waxa ku bedeli mayno uma baahnin okay baan odhanaynaa afartaa step-yada waan soo dhamaynay step koowaad waa uniform grid ka labaad ahaa simple history data ka saddexaad ahaa custom grid iyo ka afraad ahaa custom history data grid oo lagu dhufanaynaa okay baan odhanaynaa okay markaan odhano daaqadaynu iska xidhaynaa uma baahnin iminka design-ka noocaas ah waa inoo soo baxay waxaan ka bedelaynaa color-ka black ka dhiganaynaa
graphical representation display integration sidii hore usoo aragnay black background baan ka dhiganaynaa white background ka xigta shaqeyn kartaa wax dhiba ma laha ka daatada hadda si toos ah ugu saxan tahay 13.58 feet 12 feet iyo 13.58 feet step ku xigay qaadayna waxa weeye materialka define baynu tagaynaa markaan define tagno material properties baynu tagaynaa tan waxa weeye steel waxbada horeysa waa steel si automatic ugu safraysan tahay model la garan karno tan labaad concrete si automatic ugu safraysan tahay model la garan karno tan saddexaad waa bar si automatic ugu safraysan tahay model la garan karno maadaama uu design kan design concrete yahay xabada koowaad 4000 psi ayada baan ku fanaynaa add code of material baan raacaynaa add code of material markaan tagno magaceena inuu la baxaynaa concrete 3000 psi baynu la baxnay soo saarnaa concrete baynu deenaynaa isotope baynu deenaynaa colorka adina loo bedeli karnaa wax dhiba kuma jirto adina bedelna oo soo saarnaa kaasaan soo highlight gareysanaynaa shift ayuu keyboardkana ka qabanaynaa shift markaan ku qabano mouse-ka dacalka bidix ay double click siinaysaa double click markaad siiso daaqada kala ku soo baxaysa calculator way baahnid inaad isticmaashid daaqada kala markay ku soo baxdo formulada modulus of elasticity waan gelinayna marka daaqada soo socda waxaan gelinaynaa formulada modulus of elasticity saas ma la gareynaa tan iska la gareynaa formulada waxa ay 750,000 oo lagu dhuftay square root maadaama in calaamadda square root ka haysan waxaan isticmaalaynaa sqr waxaan furanaynaa fast bracket waxaan gelinaynaa waxaan isticmaalnaa 3000 psi waan filayaa 3000 psi waan gelinaynaa 3000 psi markaad gelisid psi xoraan laakiin 3000 kaga gelinaysa calculate balance sidaas automatic kugu calculate gareynaya calculator ma baahnid dad dadna calculator ku check gareyn kartaa oo ka badanaysa halkan bay ku imaysaa kaasi roobay noo tagnay oo ka markaa tiraadid halkan baad imaysaa design property data ku dhufanaysaa halkaas aad ka masaxaysaa specify concrete composite structures fc prime 3000 ma gashanaysaa oo ka badanaysaa haddana oo ka badanaysaa oo taas halkaas inoo soo gashay xabad labaad u baahannahay concrete 3000 psi waxa ugu fiican lagu design gareeyaa waa slabka iyo beamka concrete 3500 man baahnaay oo iyadana lagu design loo isticmaalo waxa loo isticmaalaa iyadana columnka iyo shear wallka ayadana sidoo kale noqonaynaa magaceedu la baxaynaa magaceedu la baxno sidoo halkan oo kale imanaynaa formulada inuu gelinayo tinsaa waa la gareysano formulada inuu inta ugu qoraynaa waxay ahayd 750,000 oo lagu dhuftay square root fast bracket ka furo 3500 inoo geli inoo xid fast bracket ka calculate inoo dheh oo ka inoo dheh sidoo kale daaqada maynu sii furanaynaa halkan baynu imanaynaa 3500 maynu gadanaynaa iska ilaalinaysa tigsatid leedweed concrete ma baahna wadooyinka iyo waxaas loo isticmaalaa road pavementiga waxa kale ka beddelmaysa halkaas ku qoraysaa f prime c da iyo qoraysaa 3500 oo ka wada oranaysaa sidoo kale kalka dad rabto beddelaysaa wax dhiba kuma suuna oo ka markaa tiraad oo ka wada oranaysaa waan u dhanyahay labadaas stepka saddexaad waxa weeye inuu samaysano repairka xabada may soo dul istaagaynaa modification waan oranaynaa repair ma kala baysiisanaynaa okay waan oranaynaa wax kale magaca bedeli mayno repairkaas ma ku darsanayna magaceeda okay waan oranaynaa